السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي مالك سو دنيا دافيدا ka joogtaan ba waqti kastood ku sugantiin baahidin wanaagsan gaar ahaan waxaan uga wadankaygii hooyo dadka ku sugan dhamaantiin subax wanaagsan qof kasto oo aniga la mid ah habeen u tahayna waxaan leeyahay dhamaantiin ba habeen wanaagsan waxaan videogan ugu talagalay qiso aniga hay dhamaanteen ba inay saameyn ina ku lahaanayso meel uun ayna ka khusayso waxaan dhacday mar fara badan inaad qof isku carootaan ka bacdina carada darteed aad hadal ugu tuurtid Soomaalidu waxay tiraahdaa hadalna meel dheer dhagaxna meel dhow waxaan dhacday carada iyo hadalka qofka aad ku tuurtay caradu ay ka keentay in ay keento qofka inaad kala fogaataan oo kala durugtaan mararka qaar kood hadalka hadaadan u fiirsanin marka qofku gaar ahaan uu careysiin hadalka uma fiirsan karo maxaa yeelay carada ka tan badan waxaana dhacda in qofka intaad isku carootaan aad hadal ku tiraadid hadalkaas uu dhaawac weyn dhexdiina keeno inuu qalbigiisa dhaawaco ama labadiinuba aad kala goodaan ama gacan qaadba inuu ka yimaado waxyaabahaas oo dhan marka la soo ururiyana waxa aabbo iyo hooyo uu ahi waa caradaada oo aad control weydii qofku haddii caradiisa uu control waayo waa mushkilad weyn waxayna keentaa in labada qof ay kala fogaadaan qalbiyana waxa dhici karta inaad dhaawac u geysatid waana xaqiiqada jirta caradaada marka aad controlshid waxaad noqonaysaa qof guuleystay guul dhammaystiran gacantaada waxaad ku haysataa maalinta caradaada controli kartid oo qof intuu ku caayo aadan u jawaabin afka aad ka xiratid oo shibka tiraadid maxaa yeelay haddii qofku uu ku caayo adna aad caydid labadiinuba isku boos baa taagantihiin haddii uu isagu qof xun kuugu muuqdo adiguba qof wanaagsan ma tihid maxaa yeelay hadalkii uu ku yiri hadal la mid aad ku tiri taasana labadiina isku darajo inay idin istaajinaysa marka waa in hadalka qofka aad ku oranaysid aad ka fiirsatid iyo qaabka aad u oranaysid iyo cidda aad ku oranaysid intuba waa laga maarmaan markii qofku waa caroodo waxaa dhacda qaybta fahanka wanaagsan ee maskaxda qofka bini'aadamka in ay daboolanto waxaana ka xoog badanaya waa caradaas waxay keenaysaa marka in hadallada qaarkood aad iska soo tuurtid adoon u fiirsanaynin waxay keentaa dadku inay kala go'aan oo kala durkaan oo cuqdad qalbiga la isugu qaado oo laga yaabo in xataa aan inta ay cimrigooda noolaayeenba waxaa laga yaabaa inay jiraan dad aan dunida islaba hadlinba hal hadal oo maalin la isku yiri darteed marka waa laga maarmaan qofku inuu ka fiirsado maxaa yeelay dad fara badan baa dunidan kula kulmaysa asxaabtaada qaraabadaada qoyskaaga maaragtay aad dhex joogtid ama la degantahay ama aadan la deganayn dadka aad la shaqaysid kuwa iskuul la aada dad fara badan baa xiriirka la dhaxeeya waana qasab ilkii carab bay isugu dhaweys qaniinaan waa wuxuun baad isdhaafsanaysaan wuxuun baad maaragtay idin dhex maraya waana laga maarmaan inaad caradaada control kartid markaad caradaada controlshid guul dhammaystiran baad gacanta ku haystaa haddaba qisadu waxa weeye inan yar baa inta badan marka uu caroodo guriguu jajabiyaa reerkuu caayaa wax badan buu sameeyaa maalinkii dambe wuu daalay aabihiis uu tago wuxuu yidhi aabow bal tala ii keen caradayda sidee baan u controlaa dadkii waa kan waan heshiin laanahay wuxuu yidhi anaa tala kuu keliya odaygii wuxuu fakaraaba markii dambe xal buu soo helay wuxuu soo gaday masaamiir badan buu soo gaday ama musmaaro hadba kaad u taqaanid iyo wuxuu u keenay oo kale buris ama dube hadba kaad u garanaysid markuu u keenay wuxuu yidhi aaba guriga hortiisuu marka dhigay guriguna dayrkiisu wuxuu ahaa alwaax wuxuu yidhi intuu meel u tilmaamay alwaaxa ka mida mar kasta oo aad carootid bannaanka u bax intaadan cidna u jawaabin hal musmaar qaado buriskana qaado ama dubaha ka bacdina alwaaxa meesha aan ku tilmaamay musmaarka ku mudmud markaad carootid babax meesha kii hore aad ku muddo meesha ku dhagan midka kalena ku dhaji wiilkii sidii buu sameeyay maalinkii dambe waxaa dhacday inuusan hal musmaarba ku soo mudin meeshii odaygii buu u yimid wuxuu yidhi aaba farxad wuxuu yidhi maanta hal musmaar xataa bannaanka kuma soo mudin odaygii wuxuu yidhi ma iga hubtaa wuxuu yidhi aaba waan kaa hubaa haddaba ina keen buu yidhi wuu waday wuxuu geeyey meeshii uu musmaarada markuu caroodaba uu ku tixi jiray buu geeyey wuxuu yidhi mid walba musmaarada ka mida meesha kasoo bixi wiilkii isagoon su-aal aabihii weydiinin musmaaradii oo dhan meeshuu kasoo guray wuxuu yidhi aabo ma ujeedaa musmaaradiina meesha kasoo wada dhamaysay haa laakiin maxaa dhacay wuxuu yidhi aabo meel kasta waa duleeshaa wuxuu yidhi haddaba wiilkaygow marka aad qof adoo caraysan hadal ku tiraahdid qalbigiisa saasoo kale ayaad u duraysaa hase yeeshee haddana hadda alwaaxaad dul istaagtid oo tiraahdid raalli noqo meeshaasu ma kabmaysaa isbedelsa ma ku imaanaya dabcan maya wuxuu yidhi sidaasoo kale marka qof hadal aad ku tiraadid ood qalbigiisa ku durtid isbedel weligii kuma imaanaya dhaawacaa gaaray weligii waa jiraya haba ku cafiyo qofku laakiin inuu hadalkaasu isbedel ku yimaado way adag tahay maxaa yeelay hadalku inta badan isma bedelo waa waxyaabaha ugu muhiimsan qofku inuu ka fiirsado intuusan labadiisa bushmood soo dhaafin hadduu bushmahaaga hadalku soo dhaafo bas waa dhammaatay dhagaha bini'aadamka ayuu gelayaa wixii ku maqlaya dhaawacna wuxuu u geysanayaa qalbiga waa musmaar aad qofka qalbigiisa ku mudaysid
wala laga marmaan qof markuu ka fiirsado hadallada uu oranayo iyo cidda uu ku oranayo iyo siduu u oranayo badin waxaynu u badannahay in aynu inta badan aadayno shaaha iyo sonkorta iyo waxyaabahaas ay nagu badan baynu raahna laakiin xaqiiqadu taa ma aha qofka bini aadamka waa wax naftiisa uu ku tababari karo naftaada waad ku tababari kartaa dunida markaad imaanaysay waxa maad ogeyn wax kasta oo dunida yaalana waad baratay saa darteed waa wax nafta la bari karo ama naftaada aad ku controli kartid diinteennana waxay ina faraysaa ama aayaadka qur-aanka markaad fiirisid waa in qofku caradiisa uu celiyo waa inaad carada isku celisid waa inaad naftaada controli kartid taasu guul dhammaystiran baad gacanta ku dhigaysaa laakiin markaadan caradaada controlin bini aadamka ma heshiinaysan wax kasta oo dhaca waad ka caroonaysaa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in qof meel ka hadlaya inuu arko oo yiraahdo hadalka anigu ila dalay oo uu caro meel laga taabto ama meel laga saro bay dhihi jirto Soomaalidu qofkii in meel laga saroba waxaan maqli jiray meel laga saro qofkaas Soomaaliya oo dhiig kama imaanayaan maqli jiray macnaha caradu intay ka tambadato laakiin inagu inta badan waxaynu rahnaa dadku Soomaalidu iska carab badan yihiin waa iska qaylo badan yihiin waa sidan laakiin ogow hadalkan aad tiri qofkan weligii si kastoo raalli ah waad u tiri isbedel kuma imaanayo weligii hadalkaas waa taagnaanaya waxaa dhacda qofku carada uu qaba darteed inuu mararka qaarkood kaamirooyinku maanta way iska sahlan yihiin sax inuu inta soo hor istaago uu qabiil dhancaayo hadda maxay ku dhimeen dad badan oo wanaagsan baa ku jira dad badan oo ahlu diin ah ku jira maaragtay iyadu qabiil dhammaystiran waxa ka keenaya maxay tahay waa caro waxaa laga yaabaa qofku in wiilka iyo gabadha isqaba ay murmaan hase yeeshee gabadhu hadal khatar ah oo aad weyn inay ninkeeda ku tiraahdo ama waxaa dhici karta wiilku inuu xaaskiisa ku yiraahdo taas waxay keenaysaa labada qalbi inay kala fogaadaan hadallada in marar far badan la soo xusuusto inay soo laalaabtaan ay soo noqnoqdaan waxay ku xiran tahay hadalka aad oranaysid inta uu leeyahay laakiin hadalku marba hadduu cara kaaga imaanayo inta badan naftu waxay rabtaa inay aargoosato naftu aargoosi bay ku jirtaa marka uu caraysan yahay qofku taasaan hadalka ka keenaysa hadalka marka aad tuuraysidna waxaad u tuuraysaa qofka in aad hadalkiisa iska reebtid inaad iska dhicisid iyo wax lamida hadda ka hor baa habeen waxaa xusuustaa laba wiil baa meel ku dagaalantay way murmeen labadii wiil waa isku soo boodeen waa la kala qabtay intii waa la kala hayay marka cabaar baa la kala hayay mid kamid ah wuxuu yiri hooyada waxa ku samee kii kalena waa la hayaa markaasuu hadalka wuxuu yiri kaadi maxaa tiri ku celi markaasuu yiri hooyada waxa ku samee markaasuu yiri inaad ilo su'aalan ku weydiiyo wuxuu yiri haddaan dharka ka dhigo oo ku yiraahdo hooyada waxa ku sameyn lahayd wuxuu yiri ma waalantahay wuxuu yiri oo adigu ma waalantahay maxaad aniga hooyadii igu daraysaa fiiri xikmad iyo aqli uu isticmaalay marka wuu aamusay wuu fiiriyay wuxuu yiri waad iga saxsantahay meeshii bay gacanta isgeliyeen xaqiiqo waan taagnaa isliib ay ahayd Nairobi isliib waan run ahaantii aad baan ula yaabay ninka aqligiisa gacantay markii meeshii isgeliyeen bartii habisii way saafiyeen meesha lagu kala dhaqaaqay laba nin rag ay haayeen marka qaarkood waxa dhici karta hadallada aad oranaysid inaadan u fiirsanin qofka aad ku oranaysaana uu intii iyo ka badan baynu ku miisaa dhici karta adiga meesha hadalkii laguma kala xoog badanay marka adigu sida aad ku guuleysan kartaa waa inaad afka xiratid aamusku waa guul markaad aamustid qofka waad ka raysay maaragtay marka qaarkood qof inuu ku caayo kugu dhaga hadlo maanta dhaku ag marmaro hadalkiina uusan deynayn adiguna waad ka aamusan tahay maaragtay mar walbana caradu way sii kordhaysaa mar kasta oo qofku isagoo ku caraysan uu ku soo ag istaago uu hadal kugu tuurayo aad afka ka xiratid caradiisu waa sii laba jibaarmaysaa laakiin markaad u celisid oo hadal ku celisid waad ka nafisinaysaa taas waxay keenaysaa marka in labadiini aad maanta dhan hadalkiis ku celcelisaan oo qofka kale uu maanta dhan hadal ku celceliyo waa marka koobaad marka qof uu caroodo oo uu ku caayo waa laga aamusaa yeysan waxba Soomaalidu baxar ku gal inta badan ba Soomaalidu waxay yiraahdaan qofkaas waa doqon oo isagoo la iska caayo iska taagnaa maya kan aamusay baa fariidka ah kan aamusani waa kan aqliga badan kan aamusay baa aqli badan maxaa yeelay xaaladda noocan caradu ay jirto dadkan walaaltinimo ka dhaxaysa hayloobin markaad caraysan tahayna maba is control kartid inta badan marka qofku markuu isagoo caraysan intuu ku yimaado uu wax kugu tuuro ama kugu yiraahdo sida aad kaga guuleysan kartaa waa afkaaga ka xiro iyo mid kale oo ah adigu naf ahaantaada dadka hadallada aad ku oranaysid ka fiirso maxaa yeelay waxa dhici karta qofkan dhaawaca aad u geysatid in xiriirka labadiina idinka dhaxeeya xataa hadda qaraabo ahaydeenba inuu bartaa ku go'o dad far badan baana aakhire aaday iyagoon wali isla hadlin maxaa yeelay hadal maalin dhex maray markaad adigu caradaada controlshidna waxaad ogaataa dadka dunida jooga ee guuleystay mid kamid inaad tahay maxaa yeelay qofku dabeecadiisa marka uu controli karo ama dabeecadaha naftiisa uu ka adag yahay ayuu guul dhaba gacanta ku hayaa dhamaantiinba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh